waxa uu cimrigiisa in ka badan 22 sannadood ku qaatay jabinta buur aad u weyn aadna u adkay. waxa uu biloobay jabinta buurta isagoo dhalinyarnimo ah ilaa isagoo uu ka duqoobay. haddaba sababaha uu jabinaya buurta waxay ahayd mid ka mid ah dhibaatooyin ay ka soo gaadhay family-giisa, taasoo ahayd xaaskiisa uu ifka ugu jeclaa. waxa uu arrinta darteed u sameynayaa jacayl qalbigiisa ku weynaa, taas oo bulshada inteeda ugu badan ay ku maadaysan jireen kuna tilmaami jiray inuu waala yahay. mana oga culayska qalbigiisa saaran iyo dhibaatada ay buurtaasi ay u geysatay xaaskiisa uu aadka u jeclaa. haddaba maanta waxaan doonayaa inaan ila wadaago mowduucan maanta aadka u xasaasiga ah. ku soo dhowaada sheekadeenna maanta. haddaba taariikhdu waxay ahayd 1960meeyadii ayay ahayd. haddaba wiilkanna wuxuu u dhashay dalka India, magaciisa Dashrad baa lagu magacaabi jiray. haddaba wiilkan wuxuu ku noolaa tuulooyin ka mid ah dalka India. wiilkan oo barta tuulada uu ku taalo ay u dhaxaysay buur aad u weyn. goobta uu ka shaqeeyo iyo goobta xaafadiisa ay ku taalo waxa u dhaxaysay buur aad u weyn oo xajmigeega aan la qiyaasi karin. buurtaasi tuulada dadka jooga waxay ku khasbi jirtay inay buurta ka soo wareegaan masaafo aad u badan, taasoo ku fogaan jirtay goobtooda shaqo ee beerta ah iyo goobtooda guriga ah. haddaba maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacay sidii caadada ahayd inuu subaxii soo tooso uu doonayay beertiisa inuu fasho. uu ka quraacday gurigiisii toosna oo uu baxay, waxauna uu tegay goobtiisii uu ka shaqaynayay. haddaba maalintaa wuxuu ku raagay amba uu joogay goobtiisa shaqo uu in badanna uu dhex taagnaa. haddaba xaaskiisii oo xilligii qadada gaadhay oo qadadii u diyaarisay ayaa waxaa dhacday inay xaaskiisii istiraado u gey qadadii. waxay imaaj garaysatay haddii aad soo wareegtid waa waqti aad u badan iyo masaafo dheer. waxay tiri buurtan fuul oo fano oo dhinaca un aayar uga bood si wadada yare dhowi ay kaaga samayso ay waqtigii badnaa iyo masaafadii badnaa ay kaaga soo koobto. hase yeeshee sida wax u filayeen uma aysan dhicin ee waxaa dhacday in meesha ay ku dhammaato qadarteedii amba ashajeedii. ay buurtii markay waxoogaa fanantay ay waxoogaa kortay ay u siibatay lugtu, dan ay saa ku soo dhacday. waxay dhulka ku soo dhacday iyada oo miir doorsoon. way qaylisay, in badan bay qaylisay. nasiib wanaag waxa maqlay odaygeygii oo buurta dhinaceega joogay. aad ayuu ugu soo cararay, masaafadiina uu soo jaray, ugu dambeynna uu soo gaadhay. haddaba dhibaatooyinka ugu waaweyn ee sii wajahday waxaa ka mid ahaa goobtan aynu u dhoweyn goob caafimaad amba dhakhtarku uuna hore u soo gaadhayn. sida aan sheegay, masaafada aadka u kala fog ay isku jiraan tuulada iyo kasoo wareega buurta iyo tuuladu. haddaba waxa uu la hadlay qoladii caafimaadka, dhakhaatiirtii buu la hadlay. dhakhaatiirtii waxa uu sugayay saacado badan ilaa wuxuu sugayay 24 saacadood ilaa markii dambe ay gaadhay maalin ku buuxda, maalin dhan oo dhammaystiran. ugu dambeyn waxaa soo gaadhay dhakhtarkii. laakiin waxa uu soo gaadhay xaaskiisii meydkeedii oo yaalla meesha iyadoo aad u dhiig baxday. dhaawacii ka soo gaadhay buurta ay finanaysa ee ka soo dhacdayna ay u sababtay inuu dhiig bax badan samaysmo, halkaan ay ku dhigmato. haddaba wiilkani maalintaa wixii ka dambeysay waxa uu gaadhay go'aan aad u adag. waxa uu lahaa xoolo 3 neef. waxa uu go'aan ku gaadhay inuu 3 neef uu haystay hantiya uu iibiyo. dan kabacdi uu soo iibsado sarabad yar iyo wuxuu soo iibsaday dube waxa loo yaqaan amba wax magac kale loo yaqaano ayuu soo iibsaday. waxa uu biloobay cadho darteed inuu buurtii uu jajabiyo dhammaanteedba. waxa uu waday muddo aan aad loo qiyaasi karin oo la odhan karayo muddadani maaha muddo yar aba muddo lagu kaftamayo. 22 sannadood ayuu buurta garaacay. cadho darteed iyo masiibada ay ku samaysay isaga darteed culayska soo wajahay. haddaba waxaa la yaab leh in dadkii tuulada joogay amba walaalihii amba faamligii qaybihiisii kalena ay aad ugu maadaysanayeen uu waalan yahay iyo waxyaabo aynaan ku shaqo lahayn, aan ogeyn culayska iyo dhibaatada haysata ee laabtiisa soo gaadhay. aduu ugu dambeyn muddadii maruu maalin walba soo kalaho uu subaxii soo kalaho beertiisa tago uu soo fasho uu kabacdi soo noqdo waxa uu biloobi jiray jabinta buurta. siduu saa u waday buurtii waxa uu kaga dhigay wadda caadi ayuu ka dhex jeexay, taasoo runtii tuuladiina aad ay ugu faraxday, ay tuuladiina aad uga rayaaqday. hawsha weyna uu qabtay dadkii markii hore ku maadaysanayay oo markii dambena aad ugu sacbiyay. tuuladii waxay noqotay mid wada leh oo gaadiidku soo mari karayaan oo dhakhaatiirtu soo mari karayso oo wadadii aad loo wada intifaacsado dhammaan dadkii tuulada ku jiraa. qisadan amba sheekadan waxaan ka fahmaynaa dhibaatada ay leedahay qofka culayska gaarka haysto ay dadka qaarkoodna ay ku maadaysanayaan.
qofkan imika culays waxa haystay in xaaskiisa ugu jeclaa oo uu heshanayay oo uu adduun oo dhan kaga maarmayay in ay ka dhimatay iyagina waxay lahaayeen waad waalantay mar walba waxa fiican qofka dhaawiciisa in marka hore la eego hadduu dhaawiciisu dhaawac culus yahay in la garab istaago oo laga caawiyo wixii laga caawin karayo haddii aan la caawin karayna dhibta laga daayo runtii qisadan intaas aynu ka darsaynaa ama aan ka baranaynaa in la ixtiraamo dadka aadka u dhibaataysan oo respect la siiyo sida dadkeena masaakiinta ee dawarsada meelahaas ay dadka qaar fiidooyo aan fiicnayn kasoo duubayaan dadka qaar ku maadaysanayaan dadka qaar ay la yaabayeen kuna qoslayaan insha allah wixii dhibaataysan in la caawiyo ay fiidoogeena daarayahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh